garoonka kubadda cagta ee MC Stadium ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu ka mid yahay garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta waana garoonka ugu weyn ee ku yaala magaalada Burco balse waxa soo waajahay xaalad burbur oo aad u ballaaran dawladii ka dambeeyay ee Soomaaliland ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inay wax ka qabtaan dayactirka garoonkan dooyinkii u dambeysay waxa laga soo sheegay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ayaa iyana gidaarada waaweyn ee garoonka kubadda cagta ee MC Stadium ee magaalada Burco waxay siin jireen ganacsiyadooda kala duwan burbur iyo baaba garoonka kubadda cagta ee MC Stadium dawladdu wax dhaga u dhigin garoonkaasi balse duruufaha adag ee soo waajahaya dhalinyaradu waxay saameyn weyn ku yeelatay inay fadhiistaan maqaaxiyaha isla markaana ay noqdaan qaar baadha dadka habeenkii sidoo kale dadka qaar ayaa sheegaya in gebi ahaanba dhalinyaradu aan haysan ay qaar ay ku jimicsanaan isla markaana iyadoo xaaladu saatay ayaa saaka waxaan garoonka bartigiisa ku wareynay mid kamid ah ciyaartooyda u ciyaari jirtay gobolka Togdheer oo iminka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa kan isagoo noo faahfaahinaya arrimahaas iyo kuwa kale oo badan oo garoonkan boqolkiiba aad iyo aad u dayacday waan oran karno wasiiradii in la xisaabtamo oo sharci adag la mariyo oo la xisaabtan la sameeyo dawladda Muuse Bixi waxaan sheegnaa dawladda cusbaata timi in Muuse Bixi garoonka badbaadiyo waayo uu arkaa garoonkan maanta deegaanka Burco waxa hareeyay ishaysi fara badan iyo muran fara badan oo ay isku soo galeen in dulal iyo process ayagu ay shakhsi ahaan u isticmaalayeen awoodda golaha deegaanka markay ka baxday markay gacanta ka baxday ahmiyadii gacantii maamulkii dawladdu garoonka waxay dhalinyaradu dhibaatada weyn ay qabsatay wax way garoomo private loo leeyay oo ay dhalinyaradu ayna xagga dhaqaalaha awoodi kareen oo waliba high price laga dhigay marka waxaan sheegnaa dawladda Muuse Bixi inuu il gaar ah ku eego waliba wax qabadeed ugu horeeyay inuu dhalinyarada ciyaaraha gobolka isku soo wada xoriyay dawladii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo maray ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inay wax ka qabtaan dayactirka garoonkan Axmed Kaab iyo Burco.